kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena warka TV qodobada waaweyn waxaa qayb ka noqonaya dagaal aan caadi ahayn oo gorroweed ka qarxay deegaan hoos yimaada magaalada Seylac wararkii ugu dambeeyay dagaaladaas iyo sidoo kale Somaliland oo sheegtay in magaalada Seylac ay tahay magaalo ay leeyihiin beesha Ciise ayna la degto Samaroon ayana diisoo gudbi doonaa haddaba qayladhaantiga xooganeed oo arrinkaasi laga muujiyay iyo hanjabaadiga cusleed oo loo diray godobiirsi ayayna eegi doonaa iyadoo dhinaca kale aan xoggeeda kaga helno khasaaraha ka dhalanaya caawa dagaaladan iyo buuggii xeerka Ciise weli doodooda ay taagan tahay iyo odayaasha dhaqanka beelaha Ciise oo gorroweed gudaha magaalada Seylac ka diray fariin u muuqato in si toos ah caawa u bilowday dagaal aan dhamaad lahayn oo dhexeeya beelaha godobiirsi sidoo kale Ciise mas-uuliyiin ka tirsanaa xukuumadda Somaliland oo maalmahanba ka aamusnaa colaadda gobolka Awdal ayaa shaaca ka qaaday inaysan u dulqaadan doonin waxa halkaasi ka soconaya gaar ahaan magaalada Seylac haddaba heebahaan odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Ciise oo xilligan hardan ugu jira sidii meesha looga saari lahaa godobiirsina oo aan eegi doonaa qodobadaasi sidoo kale qodobo kale ayaynu barnaamij wareedkeena hadda odayaal kusoo qaadan doonaa ugu horreyn subscribe inoo saar kanaalkeenan aynu ku bilowno magaalada Seylac duleedkeeda waxaa gorroweed ka bilowday rasaas aan caadi ahayn oo isweydaarsanayaan maleeshiyaadka godobiirsi sidoo kale Ciise kadib markii sida la sheegay doornimadii maanta ilaa iyo 3 gaadiid halkaasi laga afduubtay sidoo kalena xaaladdu ay ahayd mid aad u cakineed saacadihii ugu dambeysay waxaana la sheegayaa in labada dhinac dagaalka isku farsaaran ay tahay mid khasaare ka dhalanaya aadna looga degayay maalmihii ugu dambeysay dagaalka bilowday taasoo dad badan ay ku micneeyeen mid xaaladdu kasii dari karta islamarkaasna hubanti la-aan ay wajihi karaan dhinacyo kala duwan waxaa sidoo kale muuqanayso in durbaba saraakiil sida la tilmaamay ku hib ah madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo kasoo jeeda beesha Isaaq in gorroweed ay tageen gobolkaasi Awdal si loo kala dhexgalo dadkan waayadii ugu dambeysay xiisadooda ay tagneed ee beelaha godobiirsi sidoo kale Ciise waxayna saraakiishu shaaca ka qaadeen in xilligan aysan dhexgali karin waxaa halkaasi ka taagan oo ay ku micneeyeen inay tahay dagaal aan dhamaad lahayn labada dhinacna ay u diyaarsan yihiin taasoo dad badani ay ku fasirayaan dagaalkan inuu yahay mid u muuqdo in labada dhinac midkood uu ku guuleysan karo hardanka iyo loolanka loogu jiro gobolkaasi Awdal iyo cidda maamuleysay sidoo kale deganaanshaheedu xilligan la isku hayo maadaama godobiirsi ay xilligan sheegayso in xeerkii buugga Ciise ayagu ay diideen in uu dhigayo qariirad weyn oo la dafirayo deegaan ahaan iyo sidoo kale dad ahaan beesha godobiirsi taasoo aad ay kaga xumaadeen islamarkaasna ku kaliftay in hubka ay qaataan waxayna sheegayaan ilo wareedyo ku sugan gudaha magaalada Seylac in beesha Ciise xilligan xaaladeedu ay tahay kuwo aad looga deyranayo islamarkaasna maleeshiyaadkii godobiirsi dhankooda ay diyaargarow iyo loolan aad u xoogan dhankooda ay bilaabeen dhaqdhaqaaqan dagaal ee caawa bilowday waxay sheegeen dadku in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo waxaana si toos ah lagaga maqlayaa madaafiicda qaarkood gudaha magaalada Seylac oo la sheegayo in magaaladaas xitaa laga cabsi qabo in gudaheeda dagaalka uu yimaado hase yeeshee waxaa halkaas ku sugan ciidamo aad u tababaran oo sidoo kale ka tirsan Somaliland iyo dowladda Djibouti iyo maleeshiyaad Ciise oo odayaashooda dhaqanka halkaasi sida la tilmaamay amnigooda ku sugaya taasoo maantaba xitaa isku daygii ugu weyneed la sameeyo lagu doonayay in xeerka buugga Ciise isla maanta 14 oo horeba loo qorsheeyay in uu si rasmi ah kaga dhaco gudaha magaalada Seylac ee xarunta gobolka Salal ee Somaliland gobolkaas oo la baxday taasoo u muuqato inay maanta ugu dambeyn ay fashil xooggan ku yimaadeen maadaama duleedka ilaa iyo 3 mar laga soo wariyay maantii dagaallo aan dhiig ku daadan qaarkood oo la sheegay in xaaladdu ay ahayd kuwo hor istaagay sidoo kale colaado iyo rasaas toos ah la maqlayay qaarkoodna sidoo kale ahaayeen kuwo ay khasaare ka soo gaarayeen labada dhinac oo xitaa gaadiid la kala furtay waxaana muuqaallo ay soo duubeen maleeshiyaadka beesha godobiirsi ay shaaca ka qaadeen in dagaalkan uu yahay midii ugu xumeed oo ay Somaliland ku kala tagi lahaayeen iyagoona sheegay in xeerka buugga Ciise bandhigiisa daraadeed ay Somaliland kaga helinayso sida ay tilmaameen Ciise taasoo aysan aqbali doonin sida ay hadal ku dhigeen dadaallo fara badan oo 48 saac ugu dambeysay ay wadeen waxay ku tilmaameen inuu noqday kuwo aan marnaba suuragelin in si dhab ah looga hadlo colaadda halkaasi ka taaganay sidii si rasmi ah ay kaga jawaabi lahayd xukuumadda Somaliland tabashooyinka ay qabaan godobiirsi
waxayna maleeshiyaadku ku goodinayaan in ay wacad ku mareen in liska dhicin doono beesha ciise iyo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo ay ku tilmaameen inuu yahay colaad horiye isagoo qayb weyn ka qaadanaya lacaga badan ku bixinaya sidii meesha looga saari lahaa beesha Godobeersi taasoo ay tilmaameen in dhiigga ay u hori doonaan inta gumaysi ay ku dhex noolaan lahaayeen sida ay tilmaameen Somaliland iyo Djibouti waxay ku tilmaameen kuwa xilligan isku bahaysanaya sidii beeshaasi xuquuqdoodii ay ku lahaayeen gudaha gobolka Awdal loo doorsiin lahaa isla markaasna ay u noqon lahaayeen shacab maatiya oo aan wax xuban haysan si gaar ahaaneed waxaa jirta in maleeshiyaadku mar ay hadlayeen xog sir ay ka soo baxdo ku aadan inay hub caalami ah ka heleen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirada iyo xildhibaanadii beesha Godobeersi ee maalmahanba iyagoo ku doodaya isla markaasna hanjabaad u diraya Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale madaxweynaha Djibouti taasoo ay maleeshiyaadku ku macneeyeen inay tahay taageero timid xilligeedii loona baahan yahay in si dhab ah bulshada gobolka Awdal ay u kacaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen maleeshiyaadkan ciise oo ay tilmaameen markan inay aad ugu rajo yihiin in gobolka gudahanba ay la wareegaan ee Awdal iyo sidoo kale gobollo badan oo Somaliland ah taasoo ay tilmaameen in xitaa ilaha kale aysan ku baraarugin beesha dhexe Isaaq waxay u baaqeen in iyagu laftoodu ay ugu hiiliyaan sidii looga adkaan lahaa beeshan oo ay tilmaameen in Djibouti ay ilaa iyo diridhaba ay ka soo baxeen isla markaasna isku bahaysteen colaadan ka dhanka beesha Godobeersi aqoon-yahanada dhankooda waxay si cad u tilmaameen in albaabada la isugu dhufan doono xarumihii jaamacadaha iyo sidoo kale iskuuladii ku yaalay gobolkaasi Awdal ardaydana ay si toos ah ugu biiri doonaan maleeshiyaadka si la isaga dhiciyo beesha ciise oo xilligan u muuqato in iyagu ay u diyaarsan yihiin lafahantooda sidii ay kaga hortagi lahaayeen colaad walba oo kaga timaado Godobeersi waxaa dhinaca kale intaasi sii dheer in xukuumadda Somaliland wasiiro dhowr ah oo ka tirsanaa si gaar ahaaneed madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland in laftiisa isaguna oo si aada xilligan kaga weecanayo in uu indhaha ka saaro wax walba cadeymaha beesha ciise sidoo kale gudafalkooda awoodeed ee maalmihii ugu dambeysay sii kordhiyay ee dad badan ku sheegeen inay tahay mid aad lagaga cabsanayo isla markaasna dhaqdhaqaaqooda uu yahay kuwa halistooda wata waxayna maleeshiyaad fara badan ay tilmaameen in haddii aysan Somaliland madaxdooda ee beesha Godobeersi ku matala aysan si dhab ah kaga jawaabin dhibaatada taagan inay ka sii dari doonto isla markaasna ay noqon doonto mid aan xitaa meel dhex laga soo qaban karin sida muuqato taasoo ay ku hanjabayaan in madaxweyne ku-xigeenka uu cadeeyo mowqifkiisa dagaaladan maadaama dowladda Djibouti iyadoo ay cadeyso isla markaasna si toos ah ay u taakuleynayso ciidamadaas hub fara badan iyo lacagana ay ugu deeqayso sidii looga adkaan lahaa maleeshiyaadka Godobeersi shacabkoodana loo gumaadi lahaa taasoo ay u muuqato in dhinaca kale ilaa hadda jawaab rasmi ah aysan Somaliland ka bixin madaxdooda Godobeersi ku matala sidoo kale iyaduna waxaa jirta in qaar ka mid ah guddiga magaalada Boorame ee shaqooyinkii dhawaan ka dhacay gudaha magaaladaas loo xilsaaray in iyagu laftooda ay aad ugu sigid waxaana jirta inay xilligan walaac ka muujinayaan ballanqaadyo kala duwan oo xukuumadda Ciro ay hore kaga heeseen ku gudaaman in wix khasaare ah oo ka soo gaaray dadka shacabka ay dhimashadii dhaawaca in Somaliland iyadoo ay bixi doonto qarashaad walba iyo sidoo kale magdhow taasoo ilaa hadda aan Somaliland laga helin wax magdhow ay sidoo kale raaligelin toos ah dagaaladii sida tooska lagu soo qaaday beelaha Godobeersi ee magaalada Boorama dibadbaxyadii xooggan ay ka dhacay oo sida tooska loo tooganaya Somaliland waxay si cad u beeninaysaa in iyadoo ay ku lug lahayd colaadaas taa beddelkeeda waxay tilmaameen in maleeshiya laga soo abaabulay Muqdisho oo wata qoryaha sniperka in si toos ay u tooganayeen dadka shacabka iyaguna ay ka dambeeyaan sida ay hadal ku dhigeen taasoo xaaladdu xitaa sii kicin karta shacabka dibadbaxyadoodana dib u bilaaban karo sida muuqata waxa halka ma joogna waxa weeyaan waa dagaankii reer Siciidka waa guutadii labaadii hore tii koobaad bahayd talabaad aniga ka taliya waxa weey ducadii ugaaska waan u soo qaaday waan maqlaa bariyahan xalay baan imid ducadii ugaaska sabaroori weynaana sida diyaar baan u nahay dalkayga dadkayga waa inaan u dhiban waxa weeyaan waxaan leeyahay ciisaha dhulka deegaanka degan ee nabad baan hal ciisuhu labu ka midaysan yahay dhaqanka oo waxa xeerka la yiraahdo iyo ugaaskiina dagaal buu ku dhawaaqay haddii aad ka midaysan dad ku raacsantiin iyo ku raacsaneen halayna helaan la ciisaan hay guutadii labaad waxaanu diyaar u nahay dalkeena iyo diinteena iyo sharafteena inaan difaacno iyo badayada oo diyaar iyo odaydo saylaca diyaar ma u tihiin inaan difaacno saylac
diyaar soo ma tiidina jabhaddan halkan taagan hadda way sii socotay waxayna u socotay oo u diyaarsanayd ilaa iyo saylac say u difaacato qadiyaddeeda waxaan halkaa ku joogsannay aan inagala soo hadlayno amarkii aad bixiseen ee ahaa ha la soo hadlo ha la iska soo warbixiyo waxaan joognaa halkaasaan joognaa aan nii sheegnay waxaan leeyahay amarkiinnii baan qaadannay ciidamadana halkaasaan ku joojinnay waana heeganna ku yihiin kuna diyaarsan yihiin fadhiyaanna fadhiisinkoogana waa halkaas waxaan u dirayaa hal fariina ciidamadaasi madaniga ah ee xaqudirirka waxay qaateen amarkiinnii innagana waxaa layniiga baahan yahay waxa weeyaan waajibaadkii inaga saarnaa oonan hebel iyo 1 iyo 2 iyo 3 ina odhanayn waad fahmaysaan waajibaadkaana kaloon fariin u dirayaa hal baaq u dirayaa dhalinyada garbuusi meel kastoo ay joogaan boorama mujaahidkeegii iyo jihaadkeedu waa dhammaaday waxaan u jihaysanaynaa halkaa iyo saylac oo qadiyaddeenna aan ku difaacanaynaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay walaalayaal rabshad dambe cid dambe inay nagaga dhimanin iyo inay cid dambe nagaga dhaawacmin aan isqabsanno gacmaha aan soo tabaabushayno aan soo baxno goobaha furinta iyo nafwaaga nimaadno guud ahaan daawada la nageynta barnaamijyadeedka subscribe inoo saar nabadgelyo